السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصوماليين ودن والسلام يا ميل كستي الدنيا كجوغان ومشرح عشرين كريبي نيكي شيرع عليها إلى شلي إلى حلي إلى مانتا waxaan ku mashquulsanaa sidii aan u ururin lahaa xogaha doorashooyinka Puntland oo meel xasaasiya maraya waa isku soo xuuraamiyay caawa waxaan jecelahay halka inaan kaga dhawaaqo madaxweynaha soo socda ee Puntland doorashadii waxay u muuqataa mid lagu kala adkaaday madaxweynahaas aan ku dhawaaqayaa madaxweynaha soo socda ee Puntland caawa halkan kaga dhawaaqayaa waxa weeye waadna arki doontaan natiijada doorashadu siday noqoto waxa aan ku dhawaaqayo waxa weeye nin jeclaysi maaha waxa weeye waa xogta aan isku soo xuuraamiyay markaan musharaxiinta meelo badan ka eegay markaan ilaa dhowr iyo 20 xildhibaan la xiriiray xogaha ii soo baxay iyo dad siyaasadda Puntland oo darasa madaxweynihii Puntland ayaan halka kaga dhawaaqaya ee 5 sano ee soo socda madaxweynihii waa ii muuqday idinkana waa idin muuqan doona waana idin sheegi doona hadii ay ka dhigo waxaan idin ka codsanayaa si dadku u soo bataan inaad si share gareysaan oo la wadaagtaan arrinta u gudagelin waxaan rabaa marka hore inaan idin sheego in doorashada ay bilaabatay heerkii la isu guurguuri jiray musharaxiin badan baa tanaasulaya oo culayskooda ku biirinaya musharax kale oo u tanaasulaya sidoo kale baarlamaankii beela haday ahaan lahayd iyo haday gobol ahaan lahayd iyo haday kutlado dhexdooda ka samaysmay oo koox ahaan lahaydba waxay wada hadal kula jiraan musharaxiinta qaarkood marka waa la isu guurguurayaa anigu halka waxaan kaga dhawaaqo wax way iska bedeli karaan saacadda ka dambaysa waxba isbedelaya waa la isu guurguuraya doorashadu waxay isbedeli kartaa 4 subaxnimo ee habeenka subaxnimada loo dareeriyo doorashada 8 January xataa wax isbedeli karaan laakiin anu halka xogtaan kaga dhawaaqayo waa hadda musharaxa xildhibaanada culayskooda ragga wax kala gooya ee hal doorka xildhibaanada ay aadeen ninka loo batay musharaxa loo batay ayaan halka kaga dhawaaqaya hal soo bato hana la sii sheer gareeyo wax way isbedeli karaan ilaahay baa amarka haya laakiin xogaha ugu dameeya iyo musharaxa hadda waxa weeye culayska xildhibaanada iyo tirada ugu badan xildhibaanadu ay aadeen iyo waliba ragga jilib culusta ah ee baarlamaanka kala fufuri kara codadka keeni kara ayaan idin sheegi doona hadii ilaahay kaga dhigo halka kaga dhawaaqi doona guddigu waxay soo saareen guddiga doorashada ee baarlamaanku waxay soo saareen oo ay sheegeen inay isdiiwaan galiyeen 21 musharax bay sheegeen sidoo kale oo isu diiwaan galiyay madaxweynaha iyo 11 musharax oo isu diiwaan galiyay madaxweyne ku xigeenka arrinta xiisaha leh waxa weeye 21 ka musharax madaxweynaha isu diiwaan galiyay hal nin baa majeerteen weheliya maxamuud Saleebaan laba nin baa weheliya nin dhulbahanta majeerteen buu weheliya maxamuud Saleebaan waxa weheliya nin dhulbahanta iyo nin Cali Saleebaan sidoo kale madaxweyne ku xigeenka ragga isu sharaxay waa 11 laba nin baa dhulbahanta weheliya labada nin waxa weeye nin waa Ismaan Maxamuud waa ninka la yiraahdo Eenow ninna waxa la yiraahdaa Cabdisalaan Salwe waa ninka soo jeeda gobolka Mudug oo Cumar Maxamuud oo ah runtii nin dhalinyaro ah oo aad looga baqsan yahay miisaankiisa oo firfircoon oo horay xafiiska ra'iisul wasaaraha uga soo noqday xogayaha joogtada ah marka waa ilaahay xamdiga hadaan hayno majeerteen madaxweyne ku xigeen doonaya waxay muujinaysaa in dimuqraadiyaddu dalka gaartay waxay muujinaysaa bisaylka siyaasadeed ee Puntland ka jira waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay ka dhigo in la arki doono madaxweyne dhulbahante ah ama warsangeli ama leelkasa haday tan noqoto iyo haday maalin dambe tan noqotoba iyo madaxweyne ku xigeen dadka kale taada oo waxaan ku raad maxamuud Saleebaan madaxweyne ku xigeen isku bacsanaya waa sugi doona hadii ilaahay ka dhigo marka waxa weeye waxa la gaaray wareegii la isu guurguuri jiray baa la gaaray musharaxiintii baa tanaasulaya oo culayskooda musharax kale ku biirinaya sidoo kale xildhibaanadu waa guurguurayaan xogta aan halka ka sheegaya waa xogtii ugu dameysay madaxweynihii waa muuqdaa nin baa xildhibaanada badankooda ku guuleystay oo ay gurigiisa joogaan sababaha waa idin sharaxi doona ninkaas maxaa ku raadaay xildhibaanada badankoodu ay ugu wareegeen laakiin mar walba waxba isbedeli kara caawa saqdhex waxba isbedeli kara beri subax waxba isbedeli kara habeen dambe waxba isbedeli kara mar walba saacad ilaa inta hoolka la galayo hoolka inta la taagan yahay dhexdiisa baa wax isku bedeli karaan xataa wax isbedelayaan laakiin anu hadda waxaan halka kaga dhawaaqayaa musharaxa loo batay baan kaga dhawaaqayaa waxa kale oo raba halka in ummadda Soomaaliyeed u sheego rag badan baa tanaasulay oo musharaxiina oo waxay leeyihiin musharaxa kale aan u tanaasulnay markaan danta dalka ka aragnay waxay afkooda kala xishoonayaan inay 20 kun waayeen ragga tanaasulaya waa rag 20 kun ee musharaxnimada lagu xiray
labaatanka kun lixid jeclaystay weeye ragga tanaasulaya qaarkood hal gobol oo Puntland leeyahay kama tagin maxaan ku rahaa degmo ma soo buuqan garowe yimaadeen qaarkood xataa guriyo ma kireysan qol bay hotelka ka digeen markaas wuxuu ku leeyahay musharax baan ahay marka dadka intii hore musharax waa la wada ahaa laakiin hadda waa la kala baxay hala sii sheergareeyo dadku intuu 3 kun gaarayo 2 kun bay maraysaa baan sugaya madaxweynaha ku dhawaaqaya waxaan rabaa warkaas inaan meel iiga qorataan haddii aan ka dhigo oo maalinta la gaaro 8 January oo natiijada madaxweynaha sida sharciga ah loogu dhawaaqo marka doorashadu soo gabagabowdo ay soo wada xasuustaan marka hala sii sheergareeyo 2 kun hadda idaawanaysa ha sii sheergareeyo warkan meel kasta caawo inuu ka dhaco baan doonayaa oo loogu soo xasuusto 1 qof uma warrami karo 2 kun uma warrami karo musharax Shilin Kureebe baan ahay marka ragga hadda tanaasulay oo shirka jaraa'id qabtay oo janno galale oo dadka noocaas leh waa rag 20 ku waayay afka kala maaragtay kala xishoodan haddii 20 kun ay heli lahaayeen oo iska bixin lahaayeenna laba isu raaci lahayd waxa isu raaci lahayd cayrnimo 20 kun oo ka baxay iyo cod la'aan marka intay ciishoon lahaayeen waxay gaareen oo qaateen go'aanka waa tanaasulay mana aha mid xun waxaan ku dhawaaqayaa madaxweynaha hadda loo batay musharaxiinta rasmiga ah oo horta musharaxiinta rasmiga ah oo doorashada ku baratamaya waa idin tirinaya ragga kan 22 isdiiwaan galiyay xataa qaarkood musharaxiin rasmi ah maaha marka khudbadda la jeediyo oo khudbadda ay jeediyaan qaar badan oo kamid waa iscasili doonaan qaar badan oo kamid xataa haday hoolka galaan oo sida doorashada sanduuqa maxaan ku raadaay codka loogu galiyo oo liiska xildhibaanadu kala dooranayaan magacooda lagu daro xataa hal cod ma heli doonaan marka ragga musharaxiinta dhabta ah baan halka ka sheegaya ama cod ha heleen ama yee helin kow waxa weeye ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Dini waa musharax dhaba Asad Cusmaan Diyaano waa musharax dhaba Jabiye waa musharax dhaba Cabdiwali Gaas waa musharax dhaba ninka la yiraahdo Faarax Ali Shire waa musharax dhaba علي عيسى ومشرح دبا خليف عيسى ومشرح دبا علي حاجي ومشرح دبا عبد الولي محمد علي كاس ومشرح دبا انت علي عبد اواري ونيدك كتاي ومشرح دبا توبان كان نين باليسك halkaas soo baxay oo 22 ah musharaxiin daba ka ah laakiin inta codka helaysa waa kooban tahay waa tira yar weeye wareega labaadna waxa u gudbi kara saddexda ugu codadka badan baa u gudbi doona waxaan ay iso dadku waa soo bateen hala sii sheergareeyo waxaan ku dhawaaqayaa musharaxa loo batay oo xildhibaanadii u guureen madaxweynaha soo socda 5 sano ee soo socda waxa weeye saan iraadiyay xogta markaan helay xildhibaanada la xiriiray waxa xildhibaanadu u guureen oo noqon doona madaxweynaha soo socda Puntland 5 sano soo socda Maxamuud Khaliif Jabiye ninkaas loo batay Maxamuud Khaliif Jabiye ninkaas loo batay Maxamuud خليف جبيه وإلى أوغان دونتان سببها لوغو بطي ما شيغيا كالنتا لباد حدا waxa haysta oo jooga booska labaad waxa jooga oo xildhibaanada badan la joogan oo laga baqaya oo kaalinta labaad jooga khaliif jabiye waa madaxweynaha soo socda aragtideeda kaalinta labaad waxa jooga oo hadii cidi birta ugu dhufanayso ama maxaan ku raadayay silsilaya ninka la yiraahdo Ali Ciise Cabdi musharaxa dhulbaante ninkaas kaalinta labaad jooga علي عيسى عبدي ساعات كستو حبيس بدل كرا دقيقة أقول دم يا حس بدل دوران دور الشدي اللي بدو كوني أفر يتمكن وعبد الولي علي قاس كقولستي هبيك يقول دم يبع عبد الولي سوكعي واحد كوج جوجي فرولة كالنت اللي عندنا واحد كجري نيكلا يرى على حاجة جورتبي حتى حكت يوحنت سوق التلويحين عبد الولي دور الشدي وكب حياة بيع هيد سببته أود بدل مهين هبيك يقول دم يي بحس بدلين دور الشدي كور رئيسي والله بدي كوني سجال كي فرول مدحوينها كانوا قري فرول بير كبلك كواي نين قال على اللي يرها الكاميري هبيك وقدم يسي باوحس بدل الكجير باكوها قال على لواها نيكلا يرهادو نور الدين عالم ديريا صدحها فرول كالنت افراد بكجري لكن سقدي دحاي وحس بدلن هدا مركز ساعد والبا وحس بدل كرا لكن حقتان هيو xildhibaanadu waxay u guureen sababahana hadda aan idin sheegi doonaa jabiye loogu guuray Maxamuud Khaliif Jabiye ninkaas loo guuray kaalinta labaad waxa ku jira علي عيسى عبدي لبدا نين با كالid wareeg ugu dambeeya xataa isla tagi doona jabiye waxa loogu guuray meeshii garow ahayd lacag laan baa taala musharaxiin badan jeebkooda la arkay meesha lacagay dadka isu soo dhaweysooy waxa way qaraabo ka dhigtay laba aan isahayn isu keentay kuwa aan isaqoon faansiisay lacag la'aan musharaxiin badan oo la tuhmayay waxay 6 milyan waa dhaaf weeyday jabiye waa ninka kaliya oo garow caawa 5 milyan oo cadaan u taalo كو لابو صدح أفر شن وانيكا كليا
oo 100,000 oo cadaana ya 100,000 badana waa faqri ka carar weeye 100,000 qof la dee marka ninka la yiraahdo jabiye waxa weeye waa ninka kaliya oo 5 milyan u taalo waa musharaxa kaliya oo 100,000 ama 200,000 codka ku iibsan kara arintaas waxay keentay faradu falaa wax tuuga xildhibaanada nin kasta deyn baa lagu leeyahay tolkii balaqaad buu soo sameeyay kursiga kan kharash badan baa ka soo galay waxa loo arkay jabiye nin 200 haduu cod ku gaaro xildhibaanku haduu dhaho labaan raba nin miiska u saari kara lagu arkaa ragga kale gorgortan bay ku jiraan waxa weeye 50 iga qaad 20 iga qaad 30 rag baa 5,000 xataa ilaa hadda aan kor dhaafin waxa lagu jiraa gorgortan baa lagu jiraa codka inta iga si hala si share gareeyo jabiye waxa loo arkay nin 200,000 miiska saa u dhigi kara 5 milyan baa garow u taala war amaankaaga sugo war caawa tuugada garow ku soo dhicin war 5 milyan ilaa shu war yaan laga xadin baa ku leeyahay yaan laga xanimin hadee bankeena kugu jirto saas aan leeyahay 5 milyan baa ninka u taala waxa kale oo jabiye loogu guuray waxa kamida waxa loo arkay nin shaarkiisu cad yahay dad badan baa waxay ku dhaliilayaan ninkaas khibrad siyaasadeed male war khibradda siyaasadeed dad kale nin walba waa eedeysanay ninkii xafiis soo fadhiyay oo xafiis dawladeed loo dhiibay waa ku eedoobay musuq maasuq baa maxaa ku raacay ka raacay siyaasiyiinta Soomaalida 99% inay musuq maasuq dilooday baa loo yahay waa ku gadoobay waa ku eedoobay nin xafiis inta loo dhiibay isagoo la jecel yahay ka tagay oo legacy fiican iyo magac fiican ka dhistay ma jiro nin kasta ceeb baa ka raacday marka ragga la tartamaya oo khibradda siyaasadda sheeganaya nin walba waa ciladaysan yahay nin walba xafiiska markuu soo fadhiyay ceebtiisa loo tagay marka taas isaga khibrad la'aantaasi faa'iido tartaba faa'iido u tahay barkay cidna kuma ceeboobin cidina wuxuu qaban karo ma garanayso cidina waxbuu soo haleeyay male ragga qaar marka tiraado hebel waa nin fiican waa soo shaqeeyay xafiiskaas soo joogay waxa lagu leeyahay waa soo shaqeeyay laakiin maalinta waxa soo kharibay laakiin saas uu yeelay jabiye arintaas ma jirto waa kow waa nin shaarkiisu cad yahay labo nin godob siyaasadeed qaba maaha musharaxiinta kale nin walba markuu haro jabiye codka siinaya nin musharaxa oo istiidan yihiin ma jiro barkeynina kan hore siyaasadda ugu ma jirin cid isma huruufin cid isma qabin cid isma maagin cid hore maxaa ku raada uma kala irdhoobin marka musharax walba kan hadduu haro jabiyu aadaya jabiye ragga kale waa rag siyaasad isku soo wada culaystay waa rag soo wada dagaalamay midka kale codka siin kara kuma jiro waa lambar 2 lambar 3 ragga kale dawladahoodu waa dhisan yihiin nin walba wasaaradaha waa qaybiyay nin walba waa la garanaya ninka maaliyadda ugu qoran arrimaha gudaha ugu qoran amniga ugu qoran jabiye dawladdiisu ma dhisna xildhibaanadii waxay u arkeen nin waxa la dhisan karo ta saddexaad waxa weeye beeluhu waxa ku jiraan gorgortan hadda waxa loo doonayaa lacagta marka laga yimaado reerkayga maxaa u qaban kartaa reerkayga maxaa siin kartaa waxaas wax lagu doonayaa jabiye marka wasaaradihiisii weli waxa weeye hadda la kala qaybsanaya hadduu bilaabay inuu kala qaybiyo ragga kale waa hore baa wasaaradoodii lagu kala yaacay waa xulufay leeyihiin kooxay ku xiran yihiin jabiye nin koox ku xiran maaha cali ciise sababta aan kaalinta labaad u galiyay oo xildhibaanada badankooda u haysto iyadana waxa weeye hadda aan idila wadaagaya iyada laftigeeda sidoo kale waxa weeye gobolka Sool xildhibaanada gobolka Sool oo kale rag badan buu ka helay gobolka Sool dhaqaalu ku maqan yahay hadduu 5 milyan dhigo waa la soo celinaya ciidan bilaa mushahara ciidan bilaa tuutaa ciidan bilaa rasaasa waxa loo arkay nin gobolka Sool dhaqaalaha ku maqan yahay sida u dhigi kara oo isagoo miisaaniyadda dawladda marka laga yimaado waxa weeye ama soo den qaadi kara ama jeebkiisa ka dhigi kara waxa weeye meesha ciidan la'aan kama jirto hub la'aan kama jirto rasaas la'aan iyo dhaqaale la'aan mushahar la'aan baa ka jira ciidankii bilaamor baa ka jira jabiye waa nin rasaas Yemen ka soo gadi kara waa nin Ethiopia ka soo gadi kara waa nin Putin ka soo gadi kara saas loo arkay oo lacag haya saas loo arkay taas waa mid iyo ciidanka nin dhaqaale siin kara oo xoogaaga xataa cashuurta oo dadka laga qaado aan cunayn waa talabaad weeye dhulbaahantay marka badan saas u galay warsangale waxa uu galeen warsangale xalu shiray sagaalkoodii xalay shireen waxa la yiri musharaxiinta tartamaya oo maxaa ku raadayay Puntland ka tartamaya 9 baa gobolkeena tagay wada in ku qabiya 9 ku wada mareen nin kaliya oo wadada konton kun dhiga Cabdiwali Cali Gaas marka laga reebo oo amaanteeda leh oo mashruuca kan bilaabay oo aan la dafiri karin laakiin ragga kale marka la eego baa la yiri markay noqoto ragga isbedelka markay noqoto nin wadada intuu maray konton kun ku daray jabiya la haya faarax orod buu ku maray dani orod buu ku maray waxa ku yiri cali orod buu ku maray maxaa ku raadayay diyaan orod buu ku maday mid yiri kun baan ku daray lama hayo warsangada xalisaas ku shiray marka ninka konton inuu ku daray baa la yiri kuma eedoobi karno bari hadduu madaxweyne noqdana 500 buu inuu ku daraya waa qodobka codkii labaad oo maxaa ku raadayay ugu tirad badnaa saas ku helay reer bari isaga haysta marka ninka dani ninka la dhaho jabiye waxa weeye kaalinta koowaad buu ku jira xildhibaanadii waxay noqdeen xildhibaano cusub
la qiyaasi karin dhalinyaro ah oo isbedel raba waxay yiraahdeen ninka jabiye ah waa nin aan koox ku xirnayn waa nin aan wax la dhisan karno waxa weeye ninka xildhibaanka ah shilka uu hadda qaadanayo waxa uga muhiimsan beriika maalin dawladda wax ku yeelanaysa ma laga tala gelinaya si sheer garay nacala shidan kale ku yaal taasa ka muhiimsan marka ragii waxa loo arkay ragii kale marka dowrabiil lagu eegay nin walba koox dawladda waa u dhisan ninka xildhibaanka markuu kotonka ku qaato beriika maalin waxa weeye madaxtooyada xataa dib galmiyo berkay ninkii dawladdu waa u dhisan tahay gruubya ku xireysan marka jabiye waxa weeye dhinaciisa kale waa banaan yahay dhinaciisa kalena waa banaan yahay liiskiisii golaha wasiiradana waa banaan yihiin ninkii hadda xildhibaanku la tago hadduu qoraya dhag kan arrimaha gudaha igu qor waa ka aqbalay kan maaliyadda igu qor waa ka aqbalay kuwa kale waxay leeyihiin maaliyaddu way qoran yihiin arrimaha gudaha way qoran yihiin maxaa ka banaan deegaanka iyo beeraha iga banaan deegaanka iyo beeraha ayaa raba dadka gaaja ku leeysa mid baa rabta waa maya jabiye marka saasuu kaalinta kuwaad u galay dhaqaalahana waa haystaa rag badan oo la tuhmayayna caynima laga soo sheegay markii runta loo tagay jeebkooda waxba waa laga waayay ama milyan baa ku jira milyan muxuu yahay milyan maanta muxuu yahay habarta soo baxda oo mashaxaladaysa baan milyan deeqin nin xildhibaana oo konton kun oo deena maxaan ku dhahaa qaba oo wuxuu bugcadihiisa booska ku soo iibsaday oo caynimo soo galay wuxuu maanta u baahan yahay marka u yartahay 100 inuu qaato oo ku deembaxo buu u baahan yahay علي عيسى عبدي بانو قال يا مركا علي عيسى عبدي وانك جبيه برتا ugu dhufanayo weeye waa ninka labaad weeye علي عيسى عبدي جانسيه badan buu haystaa kow nimankii ma jeerteen wuxuu ku qanciyay inay madaxweyne ku xigeen doonaan waa guusha koowaad weeye laba nin baa madaxweyne ku xigeen u tartamaya nin eena weeye saameyn badan ma leh nin dhalinyaro ah buu ku guuleystay inuu ku qanciyo inuu maxaa ku raadayay kaalinta labaad u galo garow waa laga wacaya garow halo ha warbal live baa ku jira maxaa xogaysa oo musharaxaasi 200 ma 200 kun baa meel gaarsiinaysa ما شيء مي لبدي ساب بقول وحوي لبدي ساب بقول عنا هسكي عب وحبا هبل بالله بقول كون هسته أوران مية وأكسو على ليف كمان كان كبحو دور شو علوس دور علوس أكو جرا وأسوء عمري ليك مجرح بس لما بقول كون هسته أو دينا كسو قاضي وحبا شيء ما عاشا وجود ورلا ما هذا الحجاب كله ورلا ما هذا الحجاب هدي مؤمنة مركا وحوي علي عيسى wuxuu ku qanciyay nimankii majeerteenka inay madaxweyne ku xigeen doonaan waa sax weeye arintaasi guul weyn baa halka ka gaaray ilkajiir berigii uu maxaa ku raaday madaxweynaha doonayay waxyaabihii ilkajiir ku guul dareystay waxa kamid ahaa oo madaxweynenimada ku waayay inuu dhulbahante cid ka waayo oo ku qanciyo inay gudoomiyaha baarlamaanka doontaan ama majeerteen uu ku qanciyo inay gudoomiyaha maxaa ku raaday baarlamaanka doortaan taasi waxay keentay markii dhulbahante diiday gudoomiyaha baarlamaanka oo majeerteen diiday oo warsangalina yiri anagu madaxweyne rabnaa gudoomiye ma rabno leel ka soo aan maxaa ku raadayay ku jirin saami qaybsiga xilalka sareba inuu cidla kaga cararo marka power balance-igi baa lumay taasi warsangal ba cidla dhigtay 5 sano cidla fadhiyay marka cali wuxuu ku guul dareystay inuu helo siyaasiyiin majeerteena oo uu ku qanciyay waa la soo wici karaa wixii hadda xog yahay live ka ku jira waa la soo wici karaa rag badan ay wacay rag badan marka taasuu korto ku qanciyay labada ninna waa Usmaan Maxamuud waa eenow waa wasiirka horta caafimaadka dawladda maxaa ku raadayay xukuumadii u horeysay Cabdiwali Cali Gaas ninna waxa weeye waa Salwe waa nin dhalinyaro ah oo aan aqaano oo hay'ad ka soo shaqeeyay oo Amazon ka soo shaqeeyay oo maxaa ku raadayay VOA ka soo shaqeeyay oo miisaan culus oo gobolka mudug ka soo jeeda waligeedna dhulbahantaha iyo gobolka mudug maxaa ku raadayay nimanka Cumar Maxamuud alayna si fiican baa ka dhaxiyay dhulbahantu badana waa Cumar Maxamuud ku xaamsay inay yihiin niman dagaalama oo hadii isaaq noqoto in la dagaalamo niman wax turtuuri kara badana ka xaamsay marka dhulbahantaha iyo Cumar Maxamuudka markasta lama kala guro mar walba waa la iska ageega cali ciise marka horta arinta gool goolka ka dhaliyay maanta waxaan haynaa majeerteen madaxweyne ku xigeen doonaya oo waxa weeye taas waa mid waxa laakiin uu ku guul dareystay nimankii dhulbahante oo madaxweyne ku xigeenka doonayay inuu yiraahdo tanaasula waa meelaha cali looga soo dhacay kamid tahay cali ciise karaashinu tanaasule ahayd timacadaynu tanaasule ahayd ama inuu tanaasule ahayd haddana waqti baa la hayaa nimanka dhulbahantu wada madaxweyne rabtaan nimankaas waa inay tanaasulaan haddii kale iyaga isdhabar jabinaya moralkiina waa dilayaan meel nin madaxweyne doonaya oo 30 maalintii agalaashisa fadhido madaxweyne ku xigeen baa rabnaa yiraahdaan iyaga hawl ugu filan iyaga ka shaqeynaya dhulbahanta hadduu madaxweyne rabo ragga cameyle timacadale maxaan ku raadayay ha tanaasuleen أحمد كراشلي هديت تناسل ويان علي عيسى مدحونين ماذا يجا واسيي
sidoo kale cali rajadiisa cali waxa weeye beelihii puntland waxay yiraahdeen markuu la shiray caliyow reerkaagu 17 xildhibaan buu haystaa bahashatan waa adagtahay 30 nin baa tartamaya codadka naga heli kartaa anaga ama wareega koowaad ama ma jiraan ama waa kooban yihiin haddii dhulbahanta wareega labaad koowaad ku soo dhaafsiiyo reer tolkaa waa kugu filan yihiin 17 bay leeyihiin 10 kamid ah hadday ku siiyaan garow teleefon hallo war xogta keen live baa ku jiraa madaxweyne waa ku dhawaaqay jebiye saddex nin baa ugu cadcad haye war haa laakiin adiga codkaaga iyo hadalkaaga iyo waxa tahay cid ku garan mayso sheedaan soo gurgurtay inaad tahay inaad jinni samada ka soo dhacay tahay aduu iska sheeg saddexaan ii sheeg war laguma maqlaba de laguma maqlaba waka ninkaas wuxuu ii sheegay waa nin culus oo siyaasi oo garowa jooga wuxuu yiri jabiye waa kow waa sida xogta ku hayay cali ciise waa labo kaalinta saddexaadna wuxuu siiyay ninka la yiraahdo faar cali shire wiilka cali Salmaan buu siiyay wala maxamed Salmaan maanta oo baqay ninka jabiye hadaysan xoog saarino waxa weeye maxamed Salmaan oo baqay maanta oo baqay waayahay waa ku salaamay wuxuu xoogay soo sii marka waxa weeye waxa la yiri cali ciisow tolkaa 17 xildhibaan bay leeyihiin si sheer gareeya 10 kuwa in caaw shirtu karto farmaajina waa idaawanaya oo jeeda khayr Allah ku siiyo madaxweyne waa ka bixin khadka idaawo dhageyso marka beelihii puntland waxay yiraahdeen warsangeli dishiishe ma jeerteen dhulbahantow cali ciise waa ku filantihiin wareega koowaad idinka in ku hadlaynay ninka wareega koowaad ka soo hinjiya kan labaad idinku eegan mayno waxa u baahan tihiin codadkayga waa idin siinayna dhulbahanta marka wuxuu xujaysan yahay dhulbahanta wuxuu ku xujaysan yahay cali ciise cabdi inay wareega koowaad iyaga lagu haleeyay waa inay soo dhaafiyaan lacagtii buu hayaa waa idin siinaya oo idin ma leh war tolnimo igu codeeyay ma leh wuxuu idin leeyahay tolnimo igu codeeya wixii ma jeerteen ka lahaydeen waa kana qaat iyadoo waliba intii ka badan marka ha gumoobinina 30 nin oo ma jeerteen tartamaya nin dhulbahanta la socda ninkii baa dhacay saddex ma jeerteen wareega koowaad u gubtay wala dhulbahanta godob iyo ceeb aan weligood ka haran halka ka raacaya marka dhulbahanta waxa laga rabaa wareega koowaad beeli puntland harti lahaa daarood lahaa idinka cali ciise cabdi in maxaa ku raadaya in ku hadlayeen cali ciise cabdi wareega koowaad hadduu soo dhaafo oo aad soo dhaafisaan xilidi kama saarna ninka hadduu madaxweyne noqon waayo godobteeda warsangeli baa qaadaya dishiisha qaadaya ma jeerteen baa qaadaya leelkasa qaadaya ininka xilini kama saarna laakiin wareega koowaad hadduu ku dhaco ninkaasi dhulbahanta qaadaya dhulbahanta isjabiyay cidna kuma canaanan karo 17 cod baa leeyihiin 7 cod iibsada 5 cod iibsada ninka 12 ilaa 10 ilaa 14 wareeg koowaad soo siiya shanta kale Ahmed Karash soo iibso dhahay madaxweyne ku xigeenka ka sanaaso soo iibso meelaha la gala midda kale lacagna waa cunus qadiyadin waa meel waxa inta saam jeerteen ku qaadataan miidan qabiilnimo ku codeyn karin nacala shiidan ku yar weyn tilmaamayna micid baa in arkaysa micid baa in jeeda ma jeerteen makaamir in ku jeeda ninka maanta ceeboobinina wareega koowaad cali ciise dhulbaantow idinka in ku hadlayna warsangeli ma canaanan kartaan ma jeerteen kale ma canaanan kartaan leelkase ma canaanan kartaan dishiisha ma canaanan kartaan awrtable ma canaanan kartaan Soomaali kale halka joogta ma canaanan kartaan wareega koowaad ummadda Soomaaliyeed waxay marxaanti iga tahay cali ciise hadduu ku haro dhulbahanta riday wareega labaad hadduu ku harana warsangeli baa riday ma jeerteen baa riday dishiisha riday leelkase riday awrtable riday saas meel iga qora marka dhulbahanta waxa la idinka rabaa shirar fiican baa u socda xalay waxa la ii sheegay cali ciise cabdi iyo ninka la yiraahdo 17 xildhibaan dhulbahanta inay shireen baa la ii sheegay sidoo kale waxa la ii sheegay hadii ilaahay ku idmahayo waxa la ii sheegay shalay inuu ismada iyo iyagoo dhan la shiray rajadiisu waa fiican tahay cali ciise cabdi musharaxnimadiisu qaabka ku timi baa inii sheegaya caawa ariyar baa inii sheegaya idinla wadaagaya dad baa saa ay wacaya sheer gareeya nacala sheedan ku yeel sheer gareeya sheertu waa igu yartay sheer gareeya hadda teleefanadaas saa u soo dhacaya ninkan nin culus weeye muxuu xokaya nasoo wac nacala sheedan ku yeel waxaan idin sheegaya waxa weeye cali ciise cabdi musharaxnimadiisu soo ku timi baa inii sheegaya waxa markii jigjiga la joogay oo labada reer ee la yiraahdo qayaad iyo bahar rasame halka heshiisiinteeda daaroodu fadhiyay oo gogosha cagjar dhigay
mustafa cagjar dhigay oo shirka ay gudoominayeen garaadka in wilwaala iyo islaamka ciise maxamuud islaam ciise ninka cali markaas dareenka inuu israxo baa ku jiray waa nin aqoon leh ragga la tartamaya waxa weeye maalin dhowto waxaan akhriyay macadkiisaan akhriyay wallahi been idin sheegi miye dadka board directors ka waa wasiirkii horeetay maaliyadda Suudaan wasiirkii horeetay petrolka Ethiopia ana yaabay warninku waxaan markii la joogay hala sii sheergareeyo marka la joogay meesha la yiraahdo jigjiga mustafa cagjar baa wuxuu la hadlay isimadii reer Puntland ee meesha joogay islaan ciisha kamid ahaa ugaaska dishiisa kamid ahaa beldaaja cali salebaan baa kamid ahaa isimadu buqada u sameeyay wuxuu yiri dhageysta isimada reer Puntland dhageysta maanta ninka cali ciise waa nima saaxiibanahay waa nima isnaqaano waa nin aqoon leh maanta waa musharax Puntland musharax yahay ninka anaga soo direena waa nin aqoon leh waa nin Puntland badbaadin kara waxna u qaban kara waxaan idinka rabaa buu yiri marka waxaan idinka rabaa oo doonaya waxa weeye reerka dhulbaanta maanta tolo kursiga loo daayo looga tanaasulo laba sababood baa loogu tanaasulo waa mare de waxa weeye midnimada Puntland waa si kala yaacaysa way isku soo noqonaysaa biir hadii maartay kursiga looga tanaasulo waxa weeye reer Puntland waxyaabaha hadda maartay shakiga kala keenay oo reer baynu meel ka dhaco keenay oo khilaafka keenay wax kamid ah dadkii baa wuxuu arkay kursiga madaxweynaha midaan loo sinayn taasa keentay marka wuxuu yiri midnimadii Puntland maamulkaas maamulaan jecelahay weeye Soomaali hormoodkiisa waa xoogaysanaysaa talabaad waxa weeye buu yiri dhulbaxante kala qaybsanaan badan baa jirta dhulkoodii waxa weeye Soomaaliland baa dhinac ka haysata waxa weeye iyagii meel kuma cadda dispute area la qoray horumar ma gaaraan marka hadii kursiga asiisan dispute-nimada ka baxayaan dadkaasi waxa weeye dhulkooda xoroobaya dad midaysan bay noqonayaan taladoodu waxa weeye leader yeeshay siyaasiya hogaanka ka halaabay waxa u hagaaga uu noqonaya sida ku doorto buu yiri marka isimadii waa yahay bay dhaheen marka ninkaasi waa nin waxa weeye rajadiisu aad u fiican tahay oo ololihiisu dad baa la 10 cisho u dameeyay buu yimi war ololihiisu wuxuu ku yimi ilaa jigjiga ilaa mustafa cagjar meelashi ka socda ololihiisu marka doorashaduna doorasho one man one vote maaha qofku waxa weeye intuu hadda dad baa tagay xildhibaanaha waxa tagay tusaalahan oo kale musharaxan baran tagin male baran shacabka maxaa gacanta ugu jira waxba ugu ma jiraan rag badan oo tagay hal cod baran ka ilmeeyaan barka shacabka waxba ugu ma jiraan sagaalka xildhibaan marka la soo diro sagaalka xildhibaan shacabku ma doorto iyagu musharax ma doortaan nin isma soo saxiixa ninkii hadda waxa weeye la ay ka helaan oo jeebka u bixiyo oo ballanqaadyo fiican siiyo oo ay ku qalcaan ninkaas ay maartay ay ka dhigayaan waxa weeye ninka la yiraahdo Selwe oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne ku xigeen ninkaasi siyaasadii Puntland wuxuu ka bedelay waxa weeye ninkaasi wuxuu ka bedelay waa nin dhalinyaro ah waa nin miisaan leh Selwe madaxweyne ku xigeen doonaya markii la yiri musharaxiin badan oo Maxamuud Saleebana بريدة مركي اللي سلبا مدحونا دونية واننا نقانو ميسان له وحوي وحيابها وكوكول استعال عيسى لاي هذا إنه مجرتين كوخان عيو إنه مدحونا كحيان دورتان مدحونا كحيان مجرتين ودونتا مركي اللي هذا مايا أنا قام مدحونا أركينا كحيان دونن من أول أورنجنا ولا شكر واي ورقدوميا برلمان دورتا يا ما نقدر حوين تبتلان على القرابة وكعلى الرجلين ورحلالكم ودستوري وي ورقفكم مدحونا هالنقض مدحونا كحيان هالنقض رئيس البرلمان هالنقض وزير هالنقض قفكم بيلوا كتجيا كتاب الله بقى عن تلوص أريا ودارنيا وحكو دارنيا غير هبل بقى وشقينيا معها وحكو دارنيا دتكا يدلكا بقى وشقينيا بقى دارنيا وحوي وحنا نقول يعني غير كتجي وننقر النقضة وحوي كي كشيء يكي السكير إسكمديهن مركع عبارة مجرتين لهابي كم تاي وحيابا بنتلان بربريي أو وحنا كل حالة ده ما أنت مستواها سوق قاسيي ودتك تركع كلا شكل كو أبوري بكم ده ما أنت أرنتي سلوى إنه بعجبيه وكوبو قاعدين يا نكا سلوى وادنين مسكح فرنوية وحوي شركة سجراء تدبر في إنه قبلها إنه دافع إنه ولي ما داون سوى هذا أرك دونا خد بدأ وأرك دونا هدي لنا كديو مركا وأسوس نقد دونا هلا شير قريو قف مهم أنا رت إنه وعيا نحل دبانا إنه وعيا نحل دبانا هدي لنا كديو marka meel aad u fiican ba hawlu marayaan meel aad u fiican bay marayaan
taleefanka hadda waxaan samaynayaa waxa weeye kaar fiican aan ku shubanayaa garow aan la hadlayaa xildhibaanadu siday u kala codaynayaan cidda loo batay ha nin xildhibaan hore aan wacaya halo ha xildhibaan waa ku salaamay live baan ku jiraa adiga codkaaga lama maqlo magacaaga la garan mayo waxa weeye xataa meesha aad codayn karto waa noo sheegi kartaa bal nooga waran doorashada xagee maraysaa maya عيدكو مقليسا ما بجرتي بل وحا سو خورانستي iyo xaaladu jawigu meeshu marayo ii sheeg adiga ciidaba ku maqli mayso codkana waaba sii gaabina ciidku maqleysa oo magaca garanaysa ma jirtaba bal ii xogtana si 2,000 qof ay daawanaysa maxaa isku soo ururisay haye maya taa gartay taa habeen dambe waa gartay bal adu hadda wixii xub iyo xashasha qaayso nagu taabo ciidana kuma maqasho أرنيكي وابغي والله عسير لعقتي مشرحين تاع الباب هذا كاحرنا يصير هذا ترى هذا هبل با واحد حد وانا حلوانوي marka waxa weeye doorashadii halkaas ay maraysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan hadii ay ku sii socdaan jabiyo gurigiisi waa camiran yahay meel loo kala maraa la waayay waa musharaxa kaliya 5 milyan guriga u taalo waa ninka kaliya ballan qaaday xildhibaan wax sheego 200 baan sheegtay dhac wax sheego 100 baan sheegtay nin iyo hanki ragga kale 5 iga qaado 10 iga qaado halkaas ay marayaan jabiya lacagtan uu bixinaya waa ninka kaliya aan deemeysnayn waa ninka kaliya aan horay dalka u dhicin waa wuxuu soo shaqaystay buu bixinaya wuxuu soo shaqaystay waxaygaan madaxweyne ku doonanayaa biir sida Donald Trump maxaa ku raadayay uu xiisa wuxuu ku noqday waxayga wax ku noqonayaa biir waxayga ninkan xoolihiisa bankiyada jabiyay baa la yiri nin ladan buu ahaa marka ninka gurigiisa ka shidan tahay madaxweynaha soo socda ee Puntland waa Maxamuud Khaliif Jabiye war jabiyo na xasuusnoow war hadda koor mar baan ku amaanay war hooy aanu marna kuma soo maagin war jabiyo hayga tagin adoo hadii meesha alla ku guuleeyay waa ay muuqataa madaxweynaha tahay taleefanada dadka ka qabo dadka isku wado u cadaa reer Puntland waxba ma kala aha waxa weeye dadka isku soo dhaqbaan ku leeyahay waa ay muuqataa madaxweynaha tahay hadaa wax isbedelin waxa weeye waa ay muuqataa jabiyo dadka isku wado ha kala ilaawin hadda reer dabada ha gelin nin hadda inta campaignkiisa uu ku jiray nin ceebeen mihi kitaabkaaga akhrisanaysay meelaha tagtaba dadku waxba siinaysay nin hoole han leh dadku horumar gaarsiin kara waxaasay dadku ku wataan marka xafiiska fariisato adeero waji kala nolol soo bixin aala Ismaaniyaha nagu noqon waxa weeye xafiiskaaga yaan maxaan ku raadayay qabiilna loo ka celin saasaan ku leenahay jabiye ninkaas baa musharaxiintii u galeen waqtigii wax la bixinayay faradu falaa wax duuga xildhibaanka hadaanu arkayn oo lacag ugu tuhmayn oo ku soo hogan miyo xildhibaan musharaxiin guryahoodii la tagi la yahay baa jira sababtoo ah waxa la garanayaa inay lacag haysan hadii haystaanna waxay haystaan inay 10,000 iyo 20,000 tahay doorashadu meel qaaliye maraysa jabiye shaarkiisa cad dadka ku ololeynaya jabiye khabiir maaha khibrad siyaasadeed male war khibradii siyaasadda maxaa laga keenay waxa laga keenay nin walba xafiiska marka loo dhiibay inuu ceeb ka raacday nin hadda tartamayo khibrad siyaasadeed oo xafiis soo fadhiyay oo aan lahayn hebel saas uu sameeyay hebel waxa soo qaribay ma jiro farmaajo ra'iisul wasaare noqday waa ogeyd sidii dadka Soomaaliyeed u kasbaday khibrad siyaasadeed miyuu lahaa ma lahayn xasan cali khayre hadda ra'iisul wasaare laga dhigay sideen u taageersanahay oo uu qulubteena u tagay waa aragteen khibrad siyaasadeed miyuu lahaa xasan cali khayre ma lahayn jabiyana ninka kitaabkiisa weey waxa weeye quraanka oo akhriyo oo markuu shirjiraad qabanayo bas laba page intuuna hadlin sida laba jis uga laacayo intaas khibrad ugu filan kalaamullah bushita kalaamullah nisita khibrada kama maqna khibrada raabicay bambuug gaal qoray inuu akhriyahay kitaabka ilaahay buu akhriyaa kitaabka ilaahay wax walba dadka oo cadaalad samay ay ku qorantahay wax walba halkaas ku qorantahay markuu shirjiraad qabanayo laba jis soo akhriya jabiye ka shidan tahay jabiye ninkaas loo gurmaday ninkaas xildhibaanadii fadhiyaan habeen dambe markay tahay 2 ilaa 8 ilaa 9 fiidnimo buu lacagta qaybinaya haddana soori wada bixiyay baa la yiri musharax xildhibaan soo baxay oo markuu soo istaago aanu 10,000 sooriya u dhibin male ragga kale tan nin walba xogaagiisa wuxuu la sugayaa habeenka u dameeyana de ninkayo ala sii sheer gareeyo wareega koowaad
saddexdaa nin baa meesha ugu cadcad jabiye waa madaxweyne cali ciise waa ninka ku haysta jabiye waa madaxweyne cali ciise waa ninka ku haysta cali ciise rajadiisu tolkii bay ku xiran tahay dhulbahantow meesha iska qaad baa idin leeyahay dhulbahantow meesha iska qaad qabiiliyiin baa ahaydin ficil baa lahaydin ragraga baa ahaydin meesha iska qaad bahashu waxay u dhaxaysaa jabiye oo madaxweyne ah cali ciise oo ku haysta ninka faaraxa oo kaalinta saddexaad ku jira saasay baashu hadda ku socotaa annagu ka been sheegi mayno rag badan baa haddana soo wacaya laakiin annagu kama been sheegayno wixii ilaahay nagu ogyahay halkaa ka sheegayna nic jeclaysi nagama aha mid nagama xigo reerna lama dhalan qabiil maxaa ku rahdaa rag badanaa saaxiib ahayn baa jira ninna waxa weeye reer iskuma raacno marka halkaasay ka shidan tahay hala sii sheergareeyo jabiye waa madaxweyne nin walba hadda garow ha waco aniguna waa idin wardoon tagayaa baarlamaankii 66 xildhibaan gurigiisii bay dhooban yihiin waxa loo arkay nin daacada oo wax lala dhisan karo reer walba wuxuu hadda leeyahay wasaaradee bannaan oo ay siinaysaa wasaaradihiisi waa bannaan yihiin aniga maaliyadda igu qor aniga arrimaha gudaha igu qor qorsheynta igu qor caafimaadka igu qor halka ragga kale waxoodu waa qoran yihiin waxba kugu qormay maxaa ku siiyaa u leeyahay maxaa ka bannaan beerihiyo duurjoogta beeraha iyo duurjoogta iyo xanaanada xoolaha iyo waa meelaha lagu dhinto aan laga qadayn weeye shaqa kama jirto hay'ada wax kuma bixiyaan waxa weeye marka jabiye beelihii baa hadda ku mashquulsan qaabka wax uga heli lahaayeen gurigiisa meel laga maraa la waayay orday soo eega haddaan been sheegayo halkaas waxa beenaalay soo dhaha haddaa ka weydaan jabiye madaxweynaha tahay wari xasuusnow wari xasuusnow wari cillaha iga tagin wari dadka u cadaalad samay wari maxamuud khaliifo madaxweynaha tahay wari dadka u cadaalad samay maqaaxidana waa ku xiray labada beriyo haray ya dabki baxaya dab lagu qabsada waxa ku xilmaye hadii laga guuro meeshii laga guuran aadina laakiin sida hadda ku socoto waa si fiican way anagu meeshii hadba xildhibaanadu u bataan u guuran xildhibaanadu sidii dabeel bi hadba dhinac caadiyaan caawa halkay u socdaan halkay joogan gurigi ninkii hebelaha waa loo tagay musharax hebel xildhibaanadu waa ka soo jabeen maxaa dhacay waxba waa ka waayeen maxaa dhacay dadka ku xeeran bay ka carareen rag badan baa musharaxiin oo fiican baa markaa u tagto oo halkan shabeel baa ka fadhiya adoo waxa weeye laba cagood baa wax ka digaysaa jabiye waa nin madax bannaan jabiye guulaysatay hanaga tegin baan ku leenahay cali ciise dhulbaanta waa la dardaarmay dhulbaantu meesha iska qaado warninkaa wareega koowaad idinkaa dhaafsiin kara wareega koowaad 17kiina 7 iibsada 2 iibsada 5 iibsada 12 cod ninkaas iya wax kale ha siinina wareega labaad markuu soo gudbo reer Puntland u daayay iyaga ninka farda kula cararaya laakiin wareega koowaad inta ninka soo dhaafsiin weydaan dadka kale ku canaanina hadhowdi oo Puntland baa najibisay ha oranina wareega koowaad awood ku soo dhaafisaan waa leedahin leeyidu iman mayo beeluna saas oo go'aansadeen runta ay sheegay reer Puntland saas oo go'aansadeen wareega koowaad maanta ninka waa ku filayay waa leedin cali ciise marka cillaha uga dhaqaaqina jabiye waa madaxweyne cali ciise waa ninka ku haysta faarax al shirkaalinta saddexaad buu ku jira saacad walba waxba isbedeli kara taleefanka waa daminaya hala sii sheer gareeyo sheerta hadda arko 3 kun inay tahay daqiiqad baa soo galaya adeer war miyaa haysaa mise wardoon baa tahay maya cid kuma maqasho warka keen marka haddaa war hayso maya cid ku maqlayso wala sinu jirin ii sheeg marka warka haysaa muxuu yahay ibobsi هاي اسكدا ايتاو ادو بل ايبوبسي دد لبا كلون قف ايغا مشغولسay ايبوبسي حق بدن ما هيو marka wardoon baan warkan doonaya xildhibaanada mid baa u wacaya hala sii sheer gareeyo idinku xogta raadiya 2 saac ka bacdi iyo live baa inoo balana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سي شير قريسو شيرت كل دفتة مقاحدو إلى الشدة نعلا شدة كويا شدة شيرت كل دفتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته